وحرونتي آد وقفر أحسننا بقول كيف بقول سودوينتينا أن كلا قيب قلينا حقايا دان يردا إن أن قلبت هالكان كوكلانو حرونت حزبك UPD حزبك مدوغا نبدا إيو هروماركا إن أن قلبت كوكلانو أنغو حزبك أنغو نشرحينا إذن كنا حبنا كنغنية أنغو شرحينا كالين تدان يردا uga aadan xisbigan iyo wuxuu dhalinyarada u hayo oo la sheegay hadda Bashiir uu sheegay qaybta ugu muhiimsan mujtamaca inay yihiin waliba dhalinta wax baratay ee reer magaalka ee halkan ka muuqato maantay ee caasimadii dalka Soomaaliya haddana nasiib u helay inay deganaadaan oo ay ku dhashaan ama ku koraan ama wax ka bartaan يعني كل دليل الصومالي ودن نصيب كاسو دم ودا له إن يرو كوبان باله إذن كي أنت إذا لم يتكاه جوكتوه ضد بان جاء يسجارين نلكو بيها معانا يسجارين أو لغينا يكون كيلومتر كوان ودوين الهين أي جديد راعان أو لقطة هذا ماله كوان قريه هذا سرير كسيحن دليل إذا لا كوان واحد بدنه هي 60 واي فاي جا هي 60 عن هيسن wax badan oo nicmaha oo la haysto oo maanta laga dayrinayo in badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo haysan ayaa jirta laakiin intaasi wax dheeriya idinkeedinta marka dhamaantiin dhalinyarada noocaas ah ayaan ku soo dhaweynaynaa xarunta ahmiyadaas leh dhalinyarada haddaad ogtihiin waana ogtihiin daa la soo wada maro way qofkii Ilaahay cimri siiyo daa la wada maro way laakiin laga sheekeeyo markii la weynaado wixii la qabsaday maanta marka dhalinyaradan waxay nasiib u leeyihiin 40 iyo inta 9 sano 8 sano in hadda laga hadlayo xisbiyo oo markii anaga soo mareynay daadino kale xisbi wax la yiraahdo hal xisbi baa jiray generaalka yaqaan xisbigaas hal xisbi baa jiray hal baaba jiray hal raadiya jiray hal journal bajiray laakiin hadda dhalinyaradu waxay haystaan choice iyo ikhtiyaar ay ku kala dooran karaan xisbiyo afkaartooda iyo mabaadi'dooda banaanka la soo dhigayo marka taasna runtii nasiib kale way xisbiga UPD dhalinyarada waxa la yiraahdaa waa fatrada waqtiga ay ugu xamaaskii nashaadka badan yihiin ugu firfircoonida badan yihiin markaan soo kacaynay xogaa waa soo taagsaneynaa ulna waa la gaarayaa iyadoo lagu dhutiyo laakiin dhalinyaradu waa xilliga ugu xamaaska badan yihiin xilliga ay ugu jecel yihiin isbedelka waayo noloshooda waxa ku socota isbedel koritaankooda garba ka soo baxay wiilka waa dheeraanaya codka weynaanaya gabdhuhuna la mid yani isbedel baa ku socda wuxuu jecel yahay isagana environment iyo geeskiisa inuu asna bedelmo oo wax ka bedelo laakiin wiilka dhalinyarada gabadha dhalinyarada aan isbedel diyaar u ahayn dadka cajuusinta lagu tirnaya noloshooda inay wax ka bedelaan dalkooda inay wax ka bedelaan xaafadda ay degan yihiin inay wax ka bedelaan duruufta ay ku sugan yihiin oo shaqo la'aanta hadda la sheegayay inay wax ka bedelaan dhalinyaro lama dhihi karo qofkan dareenkaas asagoo dhalinyaro aan qabin oo meesha uu joogo meel ka fiican aysan hortiisa u muuqan waxaan rajaynayaa dhalinyaradan maanta halkan fadhida inay kuwaas yihiin xisbigu midowga nabadda iyo horumarka UPD wuxuu dhalinyarada u diyaariyay barnaamijyo xoogan meesha lagu tababarto way garoonka ciyaaraha lagu ciyaaro way xisbi hadda maqashid ee siyaasadda ciyaaraheeda lagu ciyaaraa xisbi baan ku biirayaa macnaheedu waxa weeye siyaasaddan diyaar u ahay hogaamiyaan diyaar u ahay inaan dalka wax u qabtaan diyaar u ahay inaan deegaankayga wax u qabtaan diyaar u ahay inaan xaafadayda wax u qabtaan diyaar u ahay qofku wuxuu galayaa commitment tiro badan iyo ballamo tiro badan oo noloshiis ama ha ogaado ama yuusan ogaan waa meel lagu tababarto khaladaadka la isaga saxo hogaaminta tababarro hogaamineed lagu qaato si loogu diyaariyo qofka dhalinyarada ah inuu sanadhow taxafiiska markuu tago xagee ka bilowda ama kharibin
amaba wax kalaba u haysta xafiiskii sidii dhallinyaradeenii dalkan u haysatay xafiisyada dowladda iyo iskuulka iyo mu'asasada iyo madaxtooyada iyo meelaha ayay burburinayaan sababtoo ay tahay waxay u haystaan meel qof kale leeyahay laakiin dhallinyarada markay yar yihiin ayaa loo baahan yahay inay ogaadaan madaxtooyada asagu inuu leeyahay wasaaradaha inuu leeyahay iskuullada leeyahay meelaha korontada laga dhaliyo uu asagu leeyahay meel kastoo dowladu leedahay canshuurtiisii iyo canshuurtii hooyadiis laga qaaday iyo qoyskiisa laga qaaday ayaa lagu dhisay taas marka in la ilaaliyo u baahanta guud ahaan xisbigu waa aasaasmay hadda sida la sheegayna si ku meel gaara shirweyne xoog leh ayuu qabsan doonaa dhallinyarada wuxuu u diyaariyey marka aqoonta leh garabkii dhallinyarada ayaa hadda dhismaheedii guddi maalin dhaweeta loo saaray waana rajaynaynaa dhallinyaradan dhowr qofood oo ka mid ah oo kale inay guddigaasi ku biiraan si ay dhismaha garabka dhallinyarada wax uga ogaadaan oo xogayihii dhallinyarada ayaa nala jooga gabagabada shirka ayaan inta xubnooda oo maaragtay laga qaadayo xubnahan ayuu noo sheegi doonaa waxay ka mid noqonayaan soo dhisidda garabkii dhallinyarada oo hadda Bashiir uu sheegay in 2 milyan iyo 3 milyan la rabo in la gaarsiiyo maadaama dhallinyarada la yiri 75% weeye macnii 15 milyan baan nahay 75% macnaheedu waxa weeye ugu yaraan 10 milyan baan nahay dhallinyarada Soomaaliya markii saas loo xisaabshay numberka loo xisaabshay 10 milyan 3 milyan haddaan ka qabsanay way fiican tahay meel fiican buu noo qabtay haddaan ka sii fogaanana way ka sii fiican tahay laakiin hadda bal meesha destinationkaas meesha uu noo jiheeyay haddaan aadno dhallinyarada marka garabkii hogaamin lahaa waa dowladdan oo xisbiga la mid ah garabkaas dhallinyarada waa meelaha la rabo dhallinyarada mawaahibtooda iyo aqoontooda iyo kartidooda inay ka soo dhexbaxdo si hadhowto ay wax u hogaamiyaan si hadhowto golayaasha hogaaminta dalka ay uga qayb galaan ma aha wiilka dhallinyarada intuu iska soo labisto ama gabadhu ay tiraahdo waxaas xilkaasaan rabaa laakiin waa inay ka dhex muuqataa kartidiisii iyo firfircoonidiisa inay ka dhex muuqato meeshaas soo dhawaada marka xisbiga waxaan rabnaa fooman buu leeyahay waxaan u malaynayaa in la idiin qaybin doono xisbigaas dad khibrad leh odayaal khibrad leh oo dalka soo hogaamiyay oo madaxweynaheena u horeeyo ayaa hoggaankiisa haya qof hadda la tijaabinayo ama dad hadda la tijaabinayo ma ahan dowladihii la soo dhaafo dhan wasiirro xildhibaano senataro iyo dad kale oo maaragtay gudoomiyahoo kale dadkii dalka soo hogaamiyay badankoodii ayaa xisbigan ku jira marka waxaan rabnaa dhallinyaradu inay dadkaas gacantooda wax ku bartaan waxaa laga yaabaa markay yaryaraayeen inaysan ayagu helin fursadda la haysto khibradda ay hadda xambaarsan yihiin inaysan ka faa'iidaysan dadkii ka waaweynaa laakiin maanta dhallinyaradani waxay haysataa dadkii dowladda soo hogaamiyey gacmahooda inay ku barbaaraan gacmahooda inay maaragtay tababaraan inay khibraddoodii ilaan adduunkan waa laga socdaaye ay soo wareejiyaan oo idinka waa xil wareejin qori isku dhiib weeye in idinka laydinku wareejiyo fursaddaas way jirtaa xisbiga noocaasa marka dhallinyarada fursaddaas siinaya golo kale oo golaha aqoon-yahanka la yidhahdaa jira asagana guddi ayaa maaragtay wuu joogaa guddoomiyihii guddiga waa joogaa guddi ayaa loo xil saaray inuu soo dhiso si aqoonta ku jirta maskaxda dhallinyarada iyo aqoon-yahanka xisbiga ku jira si looga maalo aqoontiisaasna uu helo meel uu ku soo bandhigo dhammaan marka dhallinyaradu fursadahaas tirada badan boo dhan bay haystaan xoghayo dhallinyarahana waa joogaa oo dalkan soo hogaamiyey meelo ka mid ah guud ahaantiin marka annagoo sidaas og xisbiga noocaasa diyaar ma u nahay inaan ku biirno gacanta aad taago qofkii diyaara bal aan ogaana qofkaan diyaar ahayn dhammaanteen waa wada nahay marka madaxweyne ma ujeedaa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo khayaartoo dhan in dhallinyaradan maanta na hor fadhidaa ay gacanta u taageen ballan galeen inay xisbiga xubno ka noqdaan weliba keligood maahane haddana waxaan taagaynaa inaad diyaar u tihiin dhallinyarada saaxiibadiina in haddana xisbiga lagu sii biiriyo dhammaan waa loo diyaar waa mahadsantihiin dhammaantiin soo dhawaada